بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله إله mahadiisu haddaan mar kale hawada ku soo laabanay annagoo mar kasta isku sheegna wanaagga xumada iska reebna ilaahay subxana wataala aan ka baryay dhammaanteen ilaah noo naga dhigaa kuwa ku intifaaca wax loo sheego. xalaqadii ugu dambeeyey waxaan ka hadlaynay sifaadka munaafiqiinta oo noo soo dhammaaday. waxaan ka hadlaynaa maanta xalaqooyin cusub bilaabayna oo muhiim ayadana ah. diinteena islaamka si aad ogtihiin ikhwaani waxay ku dhisan tahay akhlaaq ayay ku taagan tahay. inama alumamu akhlaaqun, ummaddu waa akhlaaq, fa in dahabat akhlaaquhum dahabu. ummadda haddii akhlaaqda ka tagtana ayadana ummad ma aha kuwa. nacam soomaaliya haddaan naha annaga dhibaatooyin badanaa soo marnay. ilahay waana imtixaanay. ilahay waxaan ka baryay imtixaanka halkaas inuu nagu ekeeyo, ummaddaas qalbigeeda isjeclaysiiyo, waddanka noo hagaajiyo, oo dowlad islaam ah khayr qabta ilahay na siiyo, macnaha dowlad caadil ah. xaqiiqatan waxyaabaha nalagu imtixaanay dhulkeena gumaysi soo galay iyo waxyaabaha qofka muslimka ah, wax kasta waxaa ka muhiimsan inuu diintiisa qofka loo soo dhaco. qofka markii diinta laga qaato waa aakhir shayga uu ku dagaalamayey ama uu naftiisa u hurayay, oo qofka wuxuu ku taagan yahay akhlaaqdiisa waxay ku dhisan tahay diinta islaamka ku dhisan tahay. haddii marka diintiisa ay soo gasho arrinta waxa qofkaas waa halaagsamay. walidaalika ilahi subxana watacaala qofka uu diinta ka qaado ama qofka uu diinta ka laabto oo gaalnimo naqda, qofkaas halaagii dambe uu ku dhacay ilahay khayr lama doonin, ilaahay ayaan kamaga galnay. saas daraaddeed ikhwaani waxaa nagu soo batay maalmahan social mediaha aad waxaa moodaa arrin diinteena taabanaysa inay ku faaftay, oo akhlaaqdiina taabanaysa, oo ah in waxba miisaanka diinta aan la saarin. marka xalaqooyinka aan ka hadlayna waxay ka hadlaynaa daahirada oo ah faaxishada in lagu faano, in faaxishada la faafiyo, taasoo ah diinteena waxay mamnuucda ah inuu qofka muslimka ah diinteena waxay ku dhisan tahay xishood. saas daraaddeed nabigu calayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay alxayaau min aliimaan. xayaaga xishoodka wuxuu ka mid yahay diinteena ayaa asaas u yahay iimaanka waa, balse wuxuu leeyahay xishoodka iyo iimaanka qurina jamiican, fa in rufica axaduhuma rufica alaakhar. haddaad aragto qof xishoodka laga qaaday, iimaanka laga qaaday, walciyaadu billahi. marka iimaanka in laga rafaco wax sahlan maaha. saas daraaddeed waxaad mooshaa marka in hadafna laga dhigtay soomaali haddaan nahay. nacam dhulkii qabiil waana lagu imtixaanay, qabyaalad waana lagu imtixaanay, laakiin inay faafto faaxisho aan raalli iskaaga naqano, oo gabadhaada ama gabadhayda ama walaasha ama xaaskaaga oo social media facebook noo yimaado ama snapchatka noo yimaado, oo ka xishoonin waxyaabaha diinta aan ka xosheyno, asagana darar u keenaysa, ummaddana darar u keenaysa, oo diintana darar u keenaysa ayaa naqday. saas daraaddeed xalaqaadkeena waxaan ka hadli doonaa wasaa'ilkan oo ah social media ah, dhibaatada uu leeyahay, faa'iidada uu leeyahay iyo khasaaro u leeyahay, inaan ogaano faaxishada la faafinayo caaqibadeeda maxaa ka dambeyn doono. maxaa yeelay dad badan ayaa waxay u arkaa asifani inay wax soo geliyaan, snapchat inay iska duubto, iyadoo cunto cunaysa cuntadeeda soo sawirto, ama gabar qaawan inay qaawanidaas soo dhigto, nin inaag isku dhegan ama faxasha samayna inay facebook ay soo koraan, ama gabar waraysa lala yeelanayo oo xumaan ka sheekaynayso, oo afka aan lala xishoonin, oo ajirka aan lala xishoonin. waa arrinta diiniga ay naqata. marka saas daraaddeed waxaan rabaa lacala allah subxaana watacaala waxaa laga yaabaa dadkaas walaalaheen ah inay arrintaas ay ka waantoowaan. dadka qaarkood waxay u samaynayaan faniga lacag ay soo galaysa. wuxuu ku leeyahy youtube-kayga intaas clip ayaa dhegaysatay, intaasoo kun ayaa daawatay. war bilaahi calayk, ma ogsoon tahay qiyaamaha inay inta kun ay ku daawatay inay kuu markaata furayso? ma ogsoon tahay beri inay ilaahay subxana wataala lahay maalin gacnahaaga iyo lugahaaga tashhadu calayhim alsinatuhum wa arjuluhum ay tahay inay haddii markaati lagu helo? maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahy karaama kaatibiinta waxbay qoraysaa. markay qorto qiyaamaha ayaa loo soo bandhigaya. marka qaara inkira waxay leeyahay aniga ma samaynin, markaasaa ilahi subxana wataala markaati uu keenaya. marka adiga markaati ma u baahnidba in lugahaaga kugu fasiraanba, waxaa kaaga adag intaasoo malaayiin ay daawata ku faanaysa. maxay daawatane? waxay daawatay adigu qaawin ku daawatay. gabar cayaaraysa ama qaawan ayaa soo dhigaysa. gabar ayaa waxay soo dhigaysaa snapchatkeeda, waxay soo dhigaysaa gurigeeda ka sheekaynaysaa, asraarta guriga ka sheekaynaysaa, cuntaday cunaan, nicmada ilaahay sii nicmada ilaahay subxana wataala wuxuu leeyahay waxaa ku jirta nicmada in qaarkeed la qariyo, oo ah haddaad dhibaata ka baqaysa. maxaa yeele wuxuu leeyahy istaciinuu calaa katmi xawaa'ijikum calaa qadaa'i xawaa'ijikum bilkitmaan fa ina kulli nicmatin laha xasuud. maanta cunuga kuu dhalanayo, cunugiya waxaa leedahay waa i dhashay, cuntaa cunaysaa, war dad masaakiina jira waxaas heli karin, hadday ku qabat hadha waxaa leedahay marka sheekha qur-aanka isaara halay raadiyo. waxaa leedahay maxaa kuu keenay? waxaa kuu keenay adiga ayaa wax qaad xumaanaad samaysay xalay,
meel baa joogtay wiilal iyo gabdhaha raqsi samaynayeen oo ikhtilaad samaynayeen ayaa soo dhigaysa waxay leedahay arooskaasaan ka dheelaya halle arko facebookaa soo dhigaysaa snapchatkaa soo dhigaysaa markaatiyaa isku samaynaysaa bilaahi calaykum masalada faray ka baxda marka hadday faraha ka baxdana waxayna waasici waa in loo naqdaa marka miisaanka diinta in la saaraa xalaqooyinkaas ayaan ka hadlaya maxaa yeelay ilaahi subxaana wuxuu leeyahy ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxisha yuxibuuna waxay jecel yihiin faaxisha inay faafto keliya dadkii ka faafinaya mid kala soo wadalika imaam tabari iyo keyrkiis waxay dhahay faaxishada la faafinaya waxaa kamid a xumaan kasta banaanka aad keentid wuxuu leeyahay nabiga calayhi salatu wasalaam dadka mujaahiriinta ee nabiga kullu wuxuu le ummatii mucaafiwa ila almujaahiruun kuwa ku faanaya dembi ku faanaya billahi calayk maxaa ka faa'iidaysaa adigoo qaawan inaa ummaddana soo dhigtid maxaa ka faa'iidaysaa inaa cuntada cunaysa soo sawirtid maxaa ka faa'iidaysaa dharka ilaahay ku nicmo kusi inaa soo sawirtid maxaa ka faa'iidaysaa hadday cil ay ku qabanba waxay noqonaysaa waa istihzaa weye waxa waye ummad ayaa ku jaasjaysa nicmo ilaahay ku siiyey ayaa dadka waxaa rataa inaa ku faantid aa dhahday nicmadana faan ma aha istus weye rayaaga waa la diiday waxaa arkaysaa qof dawaafaya oo cibaadada ku jiro dawaafka soo sawiraya snapchat liveka ah ama ku dhahay war cibaadada reeyada waa laga ilaaliyaa saas daraaddeed ayaa wuxuu leeyahay imaam tabari in aladiina yuxibuuna ilahi wuxuu leeyahay kuwa jecel iska dhaaf kuwa faafiya ka waran marka kuwa faafiye ka waran waxaa imaanaysa marka inay diinta ay naqato diin laiska sahla maxaa yeelay gabadhaana filin qaawin soo gelisay tana iyadoo qaawin ay soo sawirtay mid kale aa timid maxay helaysaa lacag yaraa laga yaaba in qolada youtube-ka ay ku siiso laakiin inta qof fiirsanaysa dembigaas ay u faafisa ka waran waxaana ku dhex faaftay marka inaan iska qosolno fani hebel maxay samaysay hebel saasay samaysay hebel saanuu sameeyey oo qosol iska naqata ikhwaana diinta qol maaha diinteena waa xayaa waa diin xishood ku dhisan way marka inaan iska kaashano inay jariimada isaarna wadalika qalbiga nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay tucradu fitna cala alquluubi kalxasiira cuudan cuuda wuxuu leeyahay qalbiga fitnada marka dambe fa ayuma qalibna asharbaha maanta haddaad fiirsatid snapchat ama facebook ama youtube lagu soo diray oo xumaan faafinayso ama gabar qaawan adiga sii gudbisid qalbiga marka dambe qalbiga waa koraysaa qalbiga marka dambe waa daboolmaya ilaa marka dambe aad iska soo celin karin social media aan laga celin karin aad ku faaftay aad tiraahid maxaa dhacayaan ka baqaya aniga anaa xur ah tvgeyga anaa iskale mobilkeyga anaa iskale diinta xornimadeeda dadka kale waxay leeyihin ilahi wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanu wuxuu leeyahay ragga markuu la hadlayo wuxuu leeyahay inaan indhaha la daboosho adiga iguma caawinin inaad dadka indhaha dabooshaan walidalika faaxishadii way faaftay rag iyo dumara iska soo galaya maanta waa laisku niikinaya gabar iyo wiila ninkuu soo dirayo wuxuu ku leeyahy arag waxay samaynayaan billahi caleyk ha faafinin haddaad aragta dilid garay maxaa yeelay waxaa ka qayb qaadanaysaa nashra alfaaxisha ka qayb qaadanaysaa qofkii satara ilahi subxana taala sitri ayuu man satara musliman wuxuu leeyahay diinteena waxay ku dhisantaha akhwaani diinteena maaha salaad la tukada kaliya maaha diinteena waxa weye akhlaaqa asal u ah walidalika nabiga calayhi salatu slam waqaaliqu nnaas wuxuu ittaqi illah xayثuma kunta وأتبع سيئة حسنة محا وخالق الناس بخلق حسن وأي قلق وحوري أقربكم منزلة وحان دتك وأخلاق بدن لكن إني أخلاق دينا ما أنت حشوتك كتكتو وقبله يدمركي أو عيبته هذا ما أنت الأركايو أو أرقنو أن إلهي قفو أسطر حالي وماشي جوجي عد أكسونين أروسكو كي قبل القبر لما يقان أروسكي كي قبل لما يقان دركي حرني لما يقان واقاونيد إلهي أسطر إلهي وأقولك إنه لقو يمركه لكن waxay soo dhigtay snapchat-ka soo dhigtay wixii arkaysa uu niikinaya arka dadii isku markaati gelisay eedo qaawana la arkaya arasku soo dhigay ma aragtay saaxiibadeed farandigay war ay farandi ay tusaysaa yaa ku bani cawrada inaad tustid waxa laga yaabaa gabadhaas la qaba laga yaabaa ee reer leedahay war ittaqullaha war ilaahay ka cabsada waxa ka cabsataan dhibkay leedahay dembigan ama markaatiga isku samaynaysaan social mediahan isxaan laguma samaynin waxaan fariiga arkaysaan wax la adig dhibku keenayo way ogsooyin ummadda markay ka awoodin indhaha salaada jooji markay ka gari waayeen gaalada diinta ka bax ay waxay ku heynay akhlaaqda laga dhigin ummadda hadii akhlaaq laga dhigin diintana akhlaaqay ku dhisan tahay waan sheegan alxayaa min aliimaan wey qofka haddii xishoodka laga qaado oo xumo kasta oo uu soo sheegayo waxaa arkaysaa nina iyo gabar wareysanayo wuxuu ka wareysanaya xaaraana ku wareysanaya wuxuu ka wareysanaya waxyaaba afka aan soo qaban karin ilaahi subxana wa tacaala wuxuu leeyahay nabigu wuxuu leeyahay kafaa bilmar'i ismu waxaa dembi kugu filan an yuxaditha bikulli maa samic markaasaa forward copy waa la isku diraa facebooka la iskugu diraa whatsappka la iskugu diraa xumanta la faafina waa ay diin aan haysana ikhwaani walidalika waxaan qabaa aniga ummadda Soomaaliya haddaan nahay ummadda islaamka haddaan nahay diinteena haddii loo soo dhigto waa in dadka laga qabtaa walidalika xalaqaadka soo socda dhan inta badan waxaan kaga hadli doonaa arrimahaas facebooka adilla aan u keenaa insha Allah qadka telefoonka halow qofkaas waa ka go'an filaya insha Allah telefoon ma jiro marka waxyaabaha ay leedahay waxa kamid ah inxiraafa ummadda ku dhacay fiiri
gabadhan macsida ku dhacday ilaahay asturay war macsida ida ku koobneed laakiin markay Facebook ay soo dhigto ama ay soo dhigto social media ay soo dhigto waxa imaanaya inay dhacdo inay dhacdo imaanayso dad kale ayay halaynaysaa gabar kale arkaysa oo ku dayanaysaa walidaalika nabigu wuxuu leeyahay man sanna sunnatan sayyi'a xumada ninkii bilaabay dembiga loo qoraya war qofka aad dirtay wax xun haddii lagu soo diray war meesha ku dili garay nacam halo halo sheekh السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ waxaan rabaa hal su'aal inaan ku weydiiyo. haye qofka markuu dhowr cimro iyo xajba uu galo mar walba ma inuu sameeyo ihraam baa mise waa inuu maaragtay dhar ku xidhan yahay ku tago xaramka hadii Ilaahay geeyo markas ihraam laga rabaa ninka kasto cimro sameeynaa nin kasto xaj sameeynaa dharka ihraamka inuu bisto way gabar haday tahay dharka yarta gasho kartaa dhar ihraam gaar ma jiro laakiin ragii laba go'o laga rabaa iyo wax oo tolan inay gashanin oo ningiis iyo waxaas inay gashaan ama gabdhaha dharkay rabaan ku ihraamsan karaan hadii aad wadato awlaadaada ama odaygaagana هذه محرم أول جيدة إحرام أول جيدة محرم أول جيدة درك اللي حرتوان كبصح شيخ محرم كأول جيدة نينك أو محرم كوا هل كان كبصح حرام يسال لندن مسيو مركز حرم كبتكتو مالي حرم كأول وين القصة حرين جري بس كحرام سنة يسال ما مركز ميقاتك أنت حرم كجارين إن حرتي دواي حرم كأنت هذا جارين معناها مقالك كستوحي هذا ميقات مقالوين كالقصة هكذا معي ترسل كاللوج قلاو ماشي أصلا قاطعها يا ها ما دام ديارته lagu bedelan karin wadamada transit ku taa ku xirnaysa salaad ina ay bariteen ya sheekh baan mar ku hakanay oo rag ihraam ka sii xidhanayay waka maxaa yeelay lama doonayo qofka asoo ihraam wadani inuu dhaafo miiqaadka nabiga ugu talagalay calayhi salaatu wasalaam haye naam wax kalaan ku weydiinay iga raali noqo sheekh haye sheekh weydiin kara weydiin kartaa wiil aan dhalay ayay gabadh waxay kala tageen 3 goor waa gartay dalqadii u dambeysay markay kala tageen waxaan loo soo sheegay bil intaanay maqnayn inay tiri waxaan sameynaa marxal si aan ninkayga ugu noqdo waa gartay bishiiba intaanay dhammaan waxaana lagu yidhi nin bay guursatay oo ninkii waa iska furta waxay tiri ninkaygii aan ku noqonaa xalaal miyaa may xalaal ma mise waa xaaraan xaaraan wey ninkii dambe ay ku naqateen ma banaan kii horan wax uma banaan labadaba xaaraan kii الله خير إلهي أجر بدنها كسي آمين قاتل إنعك له هلو هلو ها شيخ عثمان ها شو عمر شيخ عمر ازاي الحمد لله عندي الأخبار كيف الحمد لله يا ولا في عيني الحمد لله ما أركبه معاه نعم تلفونك يجلس على تي في كده تلفونك يجلس الشيخ واقف ها شيخ عثمان ها هلو أنا شيخ عمر زين أبايدو ها شيخ عمر نعم أقول قرت والله شيخ والله هذه درسي هذا عمل ما العيلايو هذه شيخ عثمان يو شيخ محمد كينياوي لما الشيخ لله إني ما كنت عني سنواي كوي كل لكن يا إلهي سهلوني إيه دن الله نوني إن شاء الله لا ما أنت حق الله نتصو خير الله كسي إنعك الهلو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا شاقة مياه. ها. وحوايا وأنا أحكي مع أنت فيسبوك هرت وأنا وريري لو قصود. عدكم قروا قاد وحير. فيسبوك وأنا وريري. هاي. أوكي وبدو وريري. ياشي وخلود بعيسو. سومالي دعي وباهن تايمان وإني دعيسا. أنت سيجا جارتي أنت شيخ أركتب بقى. إيجا جارتي أنت هاي سومالي هذا محل. واقرت بارك الله فيك. يا. جزاك الله خير. إلهي أن الله قصي أدعي إلهي أجرها قصي. آمين جزاك الله خير. ألو. طيب. ولذلك مسألة ما إخواني إلهي وأكسونيا ضد وحي نمبر ومجع وحي قادنا مجع وضم مجع كلي كوجلا فيسبوك وحنا يدك إن أوجانين لكن فاي وحي فافنا ور إلهي يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ور إلهي وأكسونيا مجع كستقاضو وحكست اسكو قري لكن وحنا ديدا فحشدا إن فافسد أي لديدا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حليه كل أمتي معاف وي ذات كان أو حماذا صوفافنا حديث كان سفح أو دقيستان وعليه النبي عليه الصلاة والسلام ولا عفينايا إلا المجاهرين مجاهرون تمهنا مجاهرين إلا المجاهرين وحولنا إن من المجاهرة وحكم ذا ذاتك وحكو جهراي وحكم ذا وحوليه أن يعمل الرجل بالليل عملا هبينك وحما سمي
wuxuu yidhi fayasturu ثuma yusbix waqad satrahu allahu subaxdii ilaahay waa bariisiiyey xal aroosay ka qayb gashay meeshii ka soo cayaartay way ka soo niikisay xumaanay soo samaysay ilaahay waa asturay cid ogsoon ma laha cid ogsoon ma laha ilahay waa asturay ثuma wuxuu le fayaquulu mar wuxuu leeyahay subaxdii wuxuu leeyahay fulaan camiltu albaarixata kada aw kada xalay aniga halkaasaan jiray waxaasaan soo sameeyey waxaasuu leeyahay walidaalika ilaahay subxaana watacaala kashfigii satrigii u sameeyo iska kashif uu yiri nabiga alayhi salatu wasalam walidaalika qiyaamaha waxaa dhacayo ninka adduunyana waa lagu fadeexaynaya aakhirana waa lagu fadeexaynaya saasay dhaha culamada markii xadiiskaas ay fasirayeen wuxuu leeyahay rafcu lmujaaharada waxaa ka mid ah ilaahay subxaana watacaala qofkaas inuu qalbigiisa uu xishood ka qaado maxaa yeele asaa ku faafay xishoodka ilahay kaa qaadayo maalin kasta marka maanta dhan snapchat daba taagan tahay intaa ku fariistay intaa ku qadeeyey intaa ku yeelay aad leedahay walidaalika snapchatka khaasatan markaan ka hadlayo snapchatka waa fitno ka weyn ma laha maxaa dhacay fitno ka weyn waxay tahay qofkan howsha qabsan lahaa dhan ayuu dhaha horta sir wey u tahay dowladda iyo haddii la rab ninkaan la dabagalo meeshuu joogo iyo wuxuu qabanaya dhan saa iska fadeexiyey tan kale ugu daran waxay tahay war nicmada ilaahay subxana watacala cunoo soo sawirnaya bisinka muu qabanayo cuntada nebigu wuxuu leeyahay kul biyamiinak sami illaaha bisinka muu qaban muxuu sameeyey wuxuu leeyahay horta cuntadaa sawiraya snapchat kaa gelinaya billahi calayk nebigu alayhi salam ina alcayna laxaq uu yidhi caynta isha waa xaq wixii faafisay hadhow waxaa imaanaysa qur'aanha lagu akhriyay qabtan waa la ilaysta alla isku keenay isha dhinaca kale qadka telefoonka halow 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 waa ku maqlaa halow waa ku maqlaa ani waa ku maqlaa telefoonka ka hadal tvga iska daa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ميا. ها. تيفيك اسكتها تلفونك يقول هذا. أفكار. أيوة يا شيخ سؤال أنا ربنا كويتي. أيه. هي تيفيك اسكتها تلفونك يقول هذا. عذا وقتك هو صعدي. يا شيخ فيسبوك حلال ميا مصور حرام. فيسبوك iyo waxaan hadda ka sheekeynayno haddii xumaan loo isticmaalo xaaraan weeye maxaa yeele xaaraan waxa weeye xaaraamun ligayrihi alla xaaraamun lidaati maaha laakiin xaaraamun ligayri dhan usuuliyiinta maxaa ligayri lagu yiri waxaa leeyahay haddii aad xumaan ku faafinayso facebook oo qaybeeleed aad ku faafinayso oo aad islaamo qaawan iyo niman cayaaraya iyo qurun aad soo saarayso xaaraan weeye walidaalika xaaraantiisa weli waxa weeye faaxisha faafisa cid kasta oo beejkaaga daawata oo xumaantaas ka daawata adin dib yaa ku leedahay boqol kun ku daawata boqolkooda kun dembigooda iyagoo kaaga laga naaqusin iyagana kooda laga naaqusinin ayaa adin laga qaadanaya maxaa dhacay man sanna sunnatan sayi'atan qadka telefoonka halow dhinaca kale halow asalaamu calaykum sheekh wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekh waxaa ku weydiinahaa haddii qofka gabadhii dhinka ay warqada ka codsato oo warqadeeda uu siiyo meher maa ku leedahay mise kuma laho hadday warqada ifur tira oo fur meher waa ku leedahay ilaa asaga haddoo dhihin warqadaadi waxay ku xiran tahay meherka iyo cafiga hadduu shardi kaga dhigin oo inuu furiin ee dalbato furiinka iska siiyo meherkeeda waa ku leedahay jazaaka allah khayr baaraka allah fik dhinaca kale halow halow هلا ها السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ميا. ها شيخ يورد. الحمد لله. سؤال شو كويت الله وحيتها. ها دبياش بن آدم أو قالوا دبياش إلهي ولا عبدين ما حكمت. دمياش way fara badan yihiin damiyaasha ilaahay subxaana watacaala qofka markuu shirka ku dhinto oo soo gaalnimo ku dhinto gaalka naftiisa waa kasoo hanuuni karaa shirkiga ilaahay subxana watacaala waxaa laga yaaba intay nafta ka bixi inuu tawxiidka qabsado laakiin ninka ku dhinto ilahay wuxuu leeyahy in allaha laa yakfir an yushrika bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa walaakin dunuubta sideeda kabaa'ir iyo saqaa'ir ay ka leedahay kabaa'irta toobay u baahan tahay kabaa'irta waxaa ka mid ah faaxishada walidaalika faaxisha waxaa la yidhahaa wax kasta ilahay zinada ku tilmaamay innaha faaxishatan wuxuu ku tilmaamay zinada ولذلك إلهي وحرمه الفواحش ما ظهر منها وما بطن آيات القرآن إنه كلها ولذلك مفسرين من قاعدة ويقول لي وح قرصون إتن هوصب ولا حرمه مركز تي هوصب قشهديات السوشيال ميديا أكينتد تاسو تان كهلين أنا يا أخي ننعكل هلو 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 قفك سواك قوان فيلا هلو مكجرا هلو ها السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
sheekh su'aalan ku weydiin lahaa haye waalidkay oo dhintay magaalada ay degan yihiin baan deganay muddo dhowr iyo 10 sano ama watan marka qabuurtooda haddii aan siyaarto aniga oo ma garanaysa aan kolkaa dee oo hin iyo qiiro kale igu jirin oo soo ducaynayo uun ma dhib baa ku jirta may dhib kuma jira ha badsan mar kasta lacana allah zawaaraat xadiiska gabdhaha waxaa laga maray ziyaarada inay badsadaan laakiin inay mar ay tagaan ee qabriga kusoo cibro qaataan oo xadiiska caamkiisa ogolayaan kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuur alaa fasuruha fa innaha tudakkirukum aakhira adina waxay ku tahay aakhiro ayada meeshay i tagtay ayaa arkaysaa idin oo usoo ducayn kartaa laa ba'sa waa tegi kartaa insha allah muddo 13 sano deganay magaalada marka maaha ya qalbiga iga jirta inaan may u tag waa tegi kartaa soo booq qalbigaaga wuu kusoo degaya qalbiga waxyaabaha dejiyo waxaa kamid qof qabriga inuu booqdaa kamid inuu qabriga booqdo nacam dhinaca kale هلو هلو نعم ولذلك معافاتك وحيابها معافاتك او قفك الهي مجاهرك او دنبيga ku jahrayo oo social media soo dhigayo oo xaaraanta faafinayo oo ku faanayo intaas kuna ay daawato ku faanayo waxyaabaha ilaahay oo ka rafacayo waxa kamid ah xadiiskii ibn Umar wuxuu leeyahay nabiga kaleey in allaha yudni almu'mina maalinta yawm alqiyaamaha ilaahay waa usoo dhawaanaya ninka mu'minka ah wuxuu leeyahay fayadu alayhi kadafu yasturu fayaqul wuxuu leeyahay ata'rifu kada wa kada markuu u saaro oo u dhawaado wuxuu ku leeyahay ma garanaysaa dembi maalinkaas aa gashay oo qofka mu'minku leeyahay markaas wuxuu leeyahay ay rab waa ogsoon yahay waa ogsoon dembigaas waa garanaya hatta ida wuxuu leeyahay qararahu markuu dembiga qirto qofka soo nacam waa ogsoonaa u yiraaho wuxuu leeyahay waa ku astur aniga maalinkaasna waa ka astur dadka ma sheegin aniga hadda maanta waa ka cafiyay laakiin ninka oo asturin dembigiisa oo dembigiisa aan qarsanno ku faafo waxa leeyahay maalinka ilaahay oo dhahay ilaahay ma dhahay waa ku asturtay waxa dhahay ilaahay asaab iska shifay ilaahayna waa ka shifa walidaalka dad badan ayaa cudur ka qaaday cudur laga qaaday ikhwaani cudur waxa laga qaaday oo qaasata qalbiga adkaaday maxay ka adkaaday wax kale ma snapchat waxyaaba sawirkeeda iyadoo qaawan maanta saasa yeelay waxa sameeyay dhigaysa ama facebooka ayadoo qaawan waxay ka sheekeynaysaa alqawl bil fahisha kaas waa faafabo afka in laga hadlo xumaanta حتى كون روايات دغ كم حشودان ودنبي وين وين افكاغ ان اد برتد كلمه فاحشه قد تليفون قالوا الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سيقو الهي خير بدن حقيقه جزاك الله خير بارك الله فيك سيقو ان ما انت وحاوا وكل دغيسنا لايف markaas oo gashay la had khayr badan Allah ku qof kasta waxay sameeyay ilaa ugu daa laakiin waxa loo baahan yahay dal burburayaan dad burburayaan ala Facebook ka hadla xataa waxyaalo wiila soo fadhiisanay xataa waa lay guurtada dhaxay qashin balaayo dhan la arkaa dalkan dayacan iyo dadkan qurbay meel kasta waa ku dayacan ana waxa u baahanaa in dalkeena dhisano waxa u baahan inaan tarafteena ciidada karaamadan aan soo celino ana hal mid aan ka joogo la shaqo markas xataa anoo meesha soo gala dadkina ku caayaan jecla waxa koos gareyn waxa xanuun ay waxa la haafa taalida dadna waxay dhan fuulata anoo muwaadin Soomaaliyeed diinta islaamka maxay ka qabtaa dadka la leeyahay afar shan macna haafay alisi qofna fuulwa shariicada islaamka maxay ka qabtaa mid diinta islaamka maxay ka qabtaa dadkan diin kuma dhaqmaan miya macna dad muslimaysan ahayn dadkan macna la dulminayo oo mar walba waxa kula xaqooda la duusanayo oo beerooda la oo guryooda la idinka laftiina culimaatiin maanta qiyaamaha waa lidin weydiina ummadan waxa waa dulmiga Soomaaliya ay ka dhisantahay waa u jeeda meel walba dulmi dawladeena dhaxana wax ay taa waa taageerina dawladda u baahanahay adduunka step way quraanka Ilaahay uu ku sheegay dawlad la'aan dhan 30 sano burbursan dhaxalkan qurbaan ka helna waa laba iskursatay ee laba ishalaysi balaaya qashin oo dhan waxa ka socdo waa aragtay waxa u baahan waxna qabtay waa u jeedaa hooyo la tarxiilay oo maxay ilmi laga reebanayo adduunka wax aan sugayno kala ma naqaan culimadan aakhir waa la weydiinaa dalkan iyo dadkan badbaadi u baahan yihiin diin waa ku badbaadi weyne maxaan ku badbaadnaa oo ummadan lagu badbaadi karaa inaan noo sheegtaan rabnaa way diinti waa ku badbaadnaa اختي waxaad moodaa caraysan tahay marka hore isdaji xaqiiqatan culimada ma fadhiyaan wax way sheegaan maalin kasta hadda barnaamijka ka hadlayna kamida arintan ka hadlaysa xalaqadan ka sameeyna anaga aan ka hadlayna dadka la yeesa iyo dhibaatada iyo diinta inay arintaas bari ka tahay hadaad maqlin culimo badan way ka hadashay qofkana in Allah la yughayir ma biqum hatta yughayir ma bi anfusihim anaga dadka wax sheegida leenahay laakiin ina wax gacan aan ku bedeli karno mal qofka asaga ayaa la rabaa inuu ismuujiyo xataa dadka la liido ayaga la rabaa inay mowqifkooda qaataan inay is ogaadaan inay dadka ka liidanin inay iyaga ismuujiyaan iyaga wax lagu tuhmay iska bari yeelaan ayaga la rabaa afka kaliya maaha
marka qofka markuu asaga isbedel uu ku dhacaya sidee tahay taas waxaa ku sii dheer arrintaa dhehaysa diin waan xalli weysa diin maan xalli weyn diinta beriya naga tahay ninka muslimka iyo islaamka hasku qaldin ninka muslimka xumaanta samaynayo islaamka beri ka yahay hasku qaldin inuu qof kastoo xun hadday jirto inuu islaamka diinta ay xun tahay maaha nacam marka dhibku way badan yahay waa dhib laakiin dhibka ugu muhiimsan waxay tahay qofka akhlaaqda hadii lagaga dhaylo maxaa yeele qofka haddii akhlaaqda laga dhigin xataa gabadha aad sheegaysid cid u gurmanaysa ma laha qofka akhlaaqda oo lahayn akhlaaqda waxay ku sheegaysaa laa yumin axadukum xataa yuxibu liakhihi ma yuxibu linafsihi waxa aniga nafteyda jeclahayn walaalkeen la jeclahay diinteyna inaan baraysaa diinteyna akhlaaq ku taagan marka anaga hadda akhlaaqayana laga duminaya markaad aragtid wax kastoo lagaa dumiyo sahal laakiin akhlaaqda in la dumiyo oo waxaa social mediahin ku faanaynaa ama idaacadaha laga sheegayaa hebela gabaraa kufsaday magaala hebel gabaraa lagu kufsaday maxaa keenay warku soomaaliya waxaas ma aqaani jirin akhlaaqda ma aqaani jirin walidaalika aniga waxaan aaminsanahay dadkan wax kufsanaya hay-adaa lacag siiyo oo waxaa rabaa in la shaaciyo maxaa dhac xumaanta la faafinaya gabar hebel la kufsaday dadaa difaacayo dadaa dhahay wax ma aha diinteen maxay ka qabtaa diintay la rabaa in la tuhmo waa aragna dad badan oo tuhmayo war diinteena xukunkeeda waa cad yahay qofka xukmu tacziira jira oo ilaa qofka dil gaarsii karo haddii ay tahay iyadoo aan la fiirin masalada eed karbaashki wax maxaa yeele qofkan waxbuu xoogay qofka oo qaaticu ariiqa aan wax xoogane lug iyo gacnaha ikhraaf looga goynaya laakiin masalada hadafka laga leeyahay gaalada ay ka leeyihiin ama waxaan qabaa waana lagu mashquulsan yahay xataa qolooyinkan facebooka soo galayo oo xumaanta aan ka xishoonaynin oo la siinayo waa laga yaabaa inay hay-ada ka dambeeyaan walidaalika anaga waxaan ka waarsanayna dadka ayada waa waaneen waxaan leenahay ilaahay ilaa kabaq gabar yahay isqaawinaysa ama kuwan oo arrinta ay dhudhuubka ku gashay oo aroos kasta isku soo sawiraya igu qaawin ayagoo ninkana soo sawirayo gabar la wareysanayo xumaan ka sheekaynayso oo xumaanta ah nin inaag isku dhegan oo xumaan waxay samaynayaan oo ama loof iyo war loofka saas maaha faaxisha la faafinaya marka taas waa ta anaga ka digayna dhehna ummadeen is ilaaliya dadka ku jiro ka baxa lacagtan adduunyada aakhira walidaalika cadaabkan ka hadlayna ka dambeeya ilahi wuxuu leeyahy fabashirhum bicadaabin aliim cadaabay leeyihin cadaab fi dunya walaakhira aayadda leedaha weli aayad adduunya dadka faaxishada jecel inay faafto ilahi wuxuu leeyahy cadaab adduunya aakhira helayaan marka waxaa laga yaabaa gabadhaas snapchatka maalin kasta taagan wax soo sareed inay salaada ku taa laga yaabaa in la qabaa laga yaabaa nin qabo markaas waxay ku leedahay maya privatekay ugu jiraa farendiskayga la daawanayo waryaa ku baneeyay farendiskaaga inuu ku daawado gabadha ina cawradeeda ay keentay yaa u baneeyey diinta banaysa maxay tahay inaad hawsha qabanaysid aad dadka tustid diinta ku banaysa maxay tahay walidaalika wax kasta waxaan ka dhiganay tatabuc gaaladii waxooda al raacaya war annaga akhlaaqa na hagto hadday akhlaaqdeena waxay u dhimayso diinta soba le waa la joojinaya akhlaaqda markaad walidaalika muxaramaadkaa faafay hadda kamid xataa qolahi riwaayadaha waa ku haysanaa waxaan leeyahay ilahay ka baqa waxaan leenahay war riwaayadaha aan dadka aad tusaysiin iyo filimada carabta iyo musalsal la fiirsanayo oo la dhahay tuugnima dadka la baraa tuuga soo wax u xado marka dambe waa la qabanaa laleeyahy tuuga laakiin dadka waxaa la barooso wax u xadaa la tusaya walidaalika hadda ilmaha kartoonada dheelahan waa laga deriyay qaarkood maxaa dhacay تعليمها كجرتو إلمها وعلى تعبيرها محايا لنا ناك الجورسنا وحلي قيانة زوجية نكذا قيانته نكله ودعوي حلال أي دين أشكتي إن لازم فرز أتراي نكيا قيانة عنق نكيا ومقنا عنق ضلي إن فين لو كيرو دين تفافين سمعتها وحياوي وحشاطوي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام الاستحياء من الله حق الحياة إن تهي حديث إمام طبراني وكل شيء marka haddii annaga xishoodkana laga qaado oo shucban iimaan lagaa qaado oo aad facebook aad ka dhigatid inuu iimaankaaga dhan rafaco aad birina tukanaysid kaasa waa kaa ka digayn annaga dadka u sheegayna dhehna ittaqullaha xurumaadka ilahay ka faafina qoladaas aan u digayn waxaan ka faafinayna qolada xumaanta aragto haddana sii faafinayso gabar wax kusoo dirayso hebel ma aragtay gabar qaawanaa la wareejinaya nin qaawanaa la wareejinaya wax kalaa la isku diraya waxaan ittaqullaha maxaa yeele diinteena waxay qabtaa in la gooyo man satara musliman satara allah diinteena saasay ku dhisan tahay diinteena waxay ku dhisan tahay xumaan qofka ka aragta ha ka faafinin laakiin dada qolol usoo galay dhibaa dhacanii sheegaya gabar hebelaa wax ku dhacday ila tali qisadaasaa dhacday qisasaa laga dhigay laakiin xumaana la faafiyuha gabaraa saas ku dhacday ninkii uur yeelay kanaa ku dheelay cunuga hor galay maantana waxaa la sheegayna faaxisha dadka la faafina gabdhaha maqlaa ilmaha maqlaa caadi noqonaysa ayadana hallo biri marka waa la keenaya ninkii arooskaa ninkaan aqaal ninkaan waa walaalkay ninkaan ikhwaani diinta saas ma aha diinta saas ma aha diinta waxaa weeye diintan sitri ku dhisan tahay qofka ilaahay nebigina waa u ballan qaaday wuxuu leeyahay waa la cafinaya qof kasta cafis oo ilaahay ka mutaysanaa ilaa ninka dembigiisa ku faano dembigaaga ninka ku faana aa u dirtid waa dhibaato wey inaa isku dirtaan sawir qaaqaawin in laisku diray iyo diinta ma qabto waa faaxishada la iska saalsado oo qof kasta loo diro oo la arag waxaan facebook ay saaran tahay ma aragtay
nin isqaawinayo oo life ku jiro oo qaawi oo curridiisu dadka tusaa ay diin hada aw ninkaas akhlaaqdiis wuxuu yahay ma garanaysa adig laakiin ana akhlaaqda uu nooga dheelaya marka adiga ha faafinin adiga ha ku saacinin qofka in akhlaaqda ka faafisid ha ku faafin qadka telefoonka halo ها شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سؤال بأنا كويدين إياه. هاي. سؤال شاس بحواي شيخو. طبق أنت تيسير هور فلسطين إن دولة دن مدحونه دعاية شعب كدعاية شيخ دعاية شريف كدعاية عدو البعاية طبق دم بجود محويه. نعم. وخلط عايد السيدة فيري عايدا لا حي ولا ميت ورنتها حتى مدحوناش انت العينيا ددك انت قفك الى النبي عليه الصلاه والسلام انا كترتا wuxuu leeyahay dadka mootada iska dhaafa waxa ka sheegin diinta ma banaan caya ku banay maxay yeel qofka muslimka ah en arabkaaga waa almuslimu man salama almuslimun min lisanihi wa yadihi aw arabkaaga dadka ka nabad galaan laakiin waxa walaalku wuxuu ku cayna xataa ma ogo wuxuu asaga oo birhadii ilaahay qiyaamaha ugu yeelay tiraah qiyaamaha ilaa maalinkii yoom alqiyaama dadka wal iimaana yoom yaqumu naas li rabbil alamin war qabiil dhan uu caynaya qabiil dad fiicna ku jiro dad xuna ku jiro reer dhan uu caynaya wuxuu caynaya nin madaxu caynaya wax ma ku haysa cad ma hadii lagu soo joojiyo lagu yiraahdo qiyaamaha wuxuu dhihi karaa ilaahay ninkan saas uu sheegay hay ugu soo cadeeyay lagu yiraahdo maxaa sameeyay walaalku waa musiibo way ikhwaan arabka ثكلتك أمك يا معاذ النبي عليه الصلاة والسلام وحليه وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام وحلو ذلك النار محاجي عرب كاجي ولذلك عرب كان ولا إله عليه قد تلفونك هلو نعم إذن عايز أصدق أنا ليس شخصي وقفك حتى الدعوة سوق هذا كرا ودعوون كرا حولي كرا قفكم حيوصوا عدايو وقفك الدعوة أحمر كرت لكن تنا أقدر وحي تاي إن الدين تي وحي تابنا يسلفها فيه أرين الدين ربتا يلفها فينا يا أرين الدين ربتا أيا لفها فينا يا وحل ليه ضدكم حلو ليه عادي لو ليه وح عادي قلبي كله محون قنية ولا لكم حيمان يسو ان قفك إنه قلبي يسو وعبو حمذا قلبي هدي عبته عادي ووحان عادي إن تلاهيت مركز دنبا أي قفك كوس قلبي قاسية القلوب وإن قلبي أتكاذو ولذلك محي سومال هذا وهشيل هذا ما حد دد وحكي شقيوهن قلوبته إني أتكات أنا وحيابي قلوبكم أتكات ما كلام ذنوبتان لفافينها كمية ذنوبتان إسلامتان قاون إسلامتان ان مركي حفلت دكتو لسو صورايو ولذلك مشكلة إنه كان أنا قرنت في السوشيال ميديا مرة كان سوال هذا أنا حمان كستا كل شيء جينا جبر أسكت إيمان يسعى عباد يسعى كل هذا نينك الأوتري هذا وشيء جيسا لكن وحس الدين قوم نورنا له عذابي فاحشة إلهي سبحانه وتعالى له عذابي وحس سهلا معها مركاتي ما هو هيسا عدين ما هيسا مية هلا عيبيو هلا عايو ومشكلتنا هيسا دوي قد كتلفونك هلو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ميا. ها. شيخ waxaan ku weydiinayaa. Ha. Su'aashii marka hore ku weydiinaysa maamada ugu horeysay oo ahayd gabadha hadee ninkeeda iska furto oo ninka kale soo aroosanayso hadana iska furayso ninkeeda ku soo laabanayso xarma su'aashaas inaan naga jahil jirto si fiican. gabadha ninkeeda hadduu furo kow waxaa shardi ah ninkeeda inuu ka cido tirsado. ninkaas ciddadiisa ku jirta nin kale ma aroosi karto islaanteed waxay tiri bilka bacdi nin kale guursatay sheegaysa ciddadaas markay tirsato nin ay la heshiinin oo ama ay beri iska fureynin ama asaga oo lasoo heshiin inay guursato waa shardiga kale haddii kale nacla allahu almuxallil walmuxallil nabiga calayhi waa lacnaday ninka uu xalalaayo dadka uu xalilaayo dhaha naagta anaa ku xalaalayna dhahayo iyo kii loo xalaaleeyebo ilaahi waa lacnaday iyo gabadha loo lacnaday oo loo xalaaleeyay waa soo gelaysaa muxallal lahu way soo gelay qofka loo xalaaleeyey marka ما بنان محللك نبي عليه تنتيس المستعار ما بنين مرنا حرام وي حدي محلل أي دعم مركو هشيس أو يمادو مدة سا قبيسة ولذلك أن ما بنانه حدي لقى قرصده إذا قرصت النية إذا تبيت النية كجرتي إن نك إسكفرت كيهر كون نقطة إذا نك حرام وكن نقا كيهر نكون نقن كرتو محير زواج استمراري وإنه الصعود على الربا لكن أنت بالك بعد إسكفورة أما مركو shuruuda kale oo guurka loo waxay tahay ninka kale ay guursato waxa sharteedan inuu u galmoodo u taga gogol seexdaan laakiin waa nin banaanka jooga maxalla la hadhow iska fura ninkayga ku naqanaan ma jirta aydan kaas waa hadan ka cita tirsataa ka bacdi kii kale ku naqanaysa hadii shuruudaha aan sheegay aan la helin hadii waxaas laakiin wax la laab ay soo galaan kii hore ma ansaxay ninka xiis kan daban ma ansaxay qadka telefoonka halo assalaamu calaykum sheekh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته sheekh waxaan ku weydiinaa haddii su-aal deynta ku saabsan haddii bimatalan gabadhu ay ninkeeda lacag ka daysato
oo ay lacagta uu yidhaha dayn bay kugu tahay oo aanu mar dambe aanu kana saamixin ninkiina uu dhinto amba ay kala tagaan oo dhul kale ku kala maqan yihiin lacagtii dayntaha gabadha miyaa lagu leeyahay waa lagu leeyahay nacam ama hadduu dhintay haddii waa lagu leeyahay hadduu dhintana dadka dhexli lahaayay siinaysaa oo iyada nafteeda waxay ku leedahay hadduu xaaskeeda xaas ay u ahayd dhaxalkaas waxay ku leedahay haddii uu nool yahayna meesha uga jooga raadinaysaa ama waa ka cafis dalbanaysaa ama inuu celisi waayo ama inuu cafis u dalbato nacam gabadhuna hadday ninka dayn ku leedahay masla xeerkaasunba nafs waa iska xeerkaas laftigeeda marka laisma saamaxayo haddii uu ku saamixi waayo lacagti waa saa kugu leeyahy waa kuwa siduu kugu leeyahy nacam jazaaka allah khayr nacam ayib waxyaabaha uu marka ay keeni karto waxaa ka mid a waasici dacf aliimaanka waa sheegnay wasaa'ilkan faafayo oo dadka ay faafinayaan wuxuu keenayaa waasica iimaanka ayuu qofka ka qaadaya waxaa kale oo qofka uu ka keeni karaa inuu noqdo waxaan sheegnay qalbigiisa inuu qaasi u noqdo oo qalbiga adkaado maxaa yeelay ceebtan aa faafinaysid waxaa kale keeni kartaa dad kastoo daawado waxaa faafisay 10 kun aa ku faanaysid iyo 2 kun ay daawata dhahaysid oo dadka aad ka qasursiinaysid adiga aad joog ka dhigatay ama aad ka dhigatay wax fan ka dhigatay dembigood adaa leh maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahay waqul lilmu'miniina qudu min absaarihim dadka absaartooda oo liir hadda boolan ayaa u soo bandhigtay xumaantaada tustay waxa ka sheekaysa waa xun xaaskaaga ku qaba adiga soo gashay markaas xaaskaaga adiga aad meesh ku cayaaraysan dadka hortooda yaa ku baneeyay xaaskaaga hortooda hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna dhar wey waa inaad meel aad isa gashaan wey maahan inaad dadka hortooda keentaa tiraha waa asqabnaa xumaanaan ka sheekayna cidka iyo leysa mala dembiga dadka kugu daawada leeda lacagta adduunya hadda lacag ka qaadatay oo ama aad dad u shaqaysid ummadda akhlaaqda kaga dhel lagu yirin ilaahay adaa ku og nacam waxaa daran dadka dhahay isqarinaya magac kale facebook ku samaysanayaan ama snapchatka kaasaa ugu daran asagana maxaa dhacay ilaahay kama gamban dadku ka gambada kaas war ilaahay xabsi kugu leh dadka ka cabsan ilahay waxaan ka barin xalaqaadkaas ayaan ka hadli doonaa iyo dhibaatada leedahay iyo waxyaabaha arrintaas tocod ayaan ka hadli doonaa xalaqaadka dambe haddaan wax qalday nafteyda iyo shaydaana ka ahaatay haddaan saxna tawfiiqda ilaahay subxaanaka allah wabxamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayh wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu